السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نسولو هذا هو يمكن يحرن مرة وحنيسو بيا وحياة عروفتنا أنفعايو إن هديكو تمركو هذا يتماز سبسكرايب يسار channelka iyo like garay sina share garay muuqaalkan insha Allah si hooyooyin badan ay uga faa'iideystaan muuqaalka aan ay wado waxaan u wadaa caruurta jira 2 sano ilaa wixii ka koreeyo ayuu muuqaalkan quseeyaa si gaar ahna uu quseeyaa cunugaaga cuntada ma ka xiran yahay cunugaaga wax ma cunayo Soomahan cunugaaga wax walba aad siidid soo kaamitiido videogan adigoo ku quseeyaa ka faa'iideyso si wax badan oo kuugu taro meeshan waxa uga jeedaan waa xulbada fawaa'id badan ay leedahay hooyooyinka qaasatan caruurteesta aad bay u anfacaysaa xulbada waxaad sameynaydaa laba qaado oo xulbad ah ayaad soo qaadanaydaa waliba qaadada oo cuntada lagu cuno oo caadiga ah ayaad soo qaadanay waa dhaqay kabacdi waxaad ku shubanaysaa digsigii aad ugu tala gashay dabka inaad la saartid waxa ku darsanaydaa biyo markaas hal galaas oo biyo ah in kufac ah ama hal galaas oo biyo ah ayaad ku shubanaydaa kabacdi dabka ayaad saaraydaa dabka markaad saartid cabaar waa inuu ku darnaado dabka ilaa ay soo xumbeedo oo si fiican ay u karkarto kabacdi waxaad sameynaydaa waa u miiree shaandha ayaa u kor saaraysaa weelka aad ku miireysay ama shabaqa wax lagu miiro oo qashinka lagu miiro cuntooyinka loogu talagalay ayaa waxa saaranaydaa weelka u tala gashay inaad ku shubatid sharaabkan kadib markuu sharaabku qaboobo waxaad sameynaydaa subax kasto cunugaaga cuntada ka hor ayaa waxaad siinay بكيري سودو هدو يهي ilmaha 3 sano 4 sano jiro hal bakeeri ayaa ku filan ilmaha jiro wixii ka weyn oo 7 sano ilaa wixii ka weyn ahna waxa ku filan galaas soodo aad uga dhigay uu cabaya cunugaaga cuntada sidaas ay ugu furmaysaa waxyaabaha dabiiciga ah qaasatan xulbada waxay aad uga qayb qaadataa cuntada ilmaha inay u furto si kasta uma furto qaab loogu talagalay ayaa jirto oo loo isticmaalo qaabka ugu fiican oo loo isticmaalana waa sidaan hadii oo qaabkan loogu sameeyo caruurta cuntadana way kuugu furi waxa isku daydaa marka mar walba caruurtaada in qaabkan xulbada ugu sameysatid si ilmahaaga ay u noqdaan ilmo lafahooda aad u kobco koriimada jirkooda dhan ay isku raacdo hooyooyinka heesta caruurta jira 2 sano ilaa wixii ka koreeyo cashirkan aad buu u anfacayaa waayo waxay ka maarmi doonaan waxyaabaha abiteed furayaasha ah sida sharoobooyinka oo kaleeto markasto waxaad arkaysaa hooyooyin sharoobooyin ilmaha siiyo la qabsado marka ay ka daayaan cuntooyinkii meeshooda ku soo laabanayo oo wax bilaa abiteed ah ay noqonayaan isku day markasta marka waxyaabaha dabiiciga ah aad isdhihi kartid ilmahaaga cuntada way u furi karaan in aad kula dadaashid aadna iska yareedid waxyaabaha abiteed furayaasha ah sida sharoobooyinka kale fitamiinada caruurta muhiim ay u yihiin in la siiyo lafahooda iyo maskaxdooda iyo dhamaan koriimada jirkooda ayaan aad uga qayb qaadanayaan marka hooyo kasto oo videoga fiirsato insha Allah ka faa'iideysato si wax badan ay uga faa'iideysatana waa in ay cashir ka fahamtaa waa inayna dhameysataa videoga adigoo fahmin hada su'aalayga soo weydiisid waxaan u arkaa inaadan waxba dhageysan waayo markasto oo videoga aad dhameystiratid waa mar walba aad wax fahamtid dulqaad la sameeyo insha Allah hana loo shargareeyo hooyooyinka mar walba heesta caruurta aad ku ogtahay caruurta yaryar oo wax barato iyo kuwa kaleeto oo ka hooseeyo videogan si gooni ah wuxuu u quseeyaa caruurta wax barto oo waxbarashada ku jiro oo da'da 2 sano ilaa wixii ka koreeya ah waxbarashadaas nooca doonaan ha ahaato ama xanaano ama iskuulo ama hadii kaleeto madarasooyinka caadiga ah run ahaantii hooyo kasto hadii videogan ay dhageysato ama ay sameeydo cashirkan markuu soo gaaro way ka soo ducey doontaa insha Allah anna waad iiga soo ducey doontaan waayo waxaan ogahay abiteedka cunugaaga inuu furmayo waxaan ogahay lafihiisa inuu kobcayo waxaan ogahay cunugaaga maskaxdiisa firfircooni badan inay sameynayso waxaan ogahay caafimaadka
caafimaadka cunugaaga inay kor u qaadayso xulbada waxaa lagu daaweeyaa dhammaan cudurada jirka bini'aadamka ku dhaco waxyaabo badan ayayna u fiican tahay ilmaha gooreen hadduu haayo caloosha hadduu ka xanuunsan yahay koriimo xumo lafaha ah hadduu haayo dhammaan way kaa saacidaysaa hal mar wixii intaa samaysid ama laba mar aad samaysid haddaad soo oradid aad tiraahdo waxba waxaan ma ka faa'iidin waan siiyey waan sameeyey wax natiijana kama helin taasi macnaheeda ma ahan in aad u dul qaadatay oo natiijadii aad heshay waxawaaye macnaheeda inaadan wax faa'iido ah aada ka helin markasta oo cashir aan soo gelsho sidii aan kuu sheegan aad u sameedid waad ku guuleysan doontaa hadduu rabbi idmo niyadana aad qeyr u sheegtid oo mar walba aad u niyeysatid waxyaabaha markaas aad ka cabanaysid inay kaaga daawoobaan isku day marka waxyaabo kiimikaal ah kuuma soo gudbin in aad ka faa'iidaysatid cashirkan oo weliba si dhib yar ah uga faa'iidaysatid hooyooyinkan isku mid ma ahan hooyooyin waxaa jiraan jecel maasha allah tabaaraka raxmaan aada u firfircooni badan mar walba jecel waxyaabaha aan usoo gudbiyo in ay see tahay ay u sameeyaan kadibna natiijadii oo wax ku ool ah iisoo gudbiyo oo markasta iiga duceeyo hooyooyinkaasoo kale ayaa laydinka rabaa inay noqotaan hooyooyinka aan sameynin sidaas isku daya mar walbo waxyaabaha waqtiga loo qabtay in aad geesid markaas ayaa waxaa dhihi kartaa ama waxbay i tareen ama wax ima tarin markaas ayaa natiijada saxda ah aad sheegi karta laakiin ka hor haddii aad natiijo soo sheegtid ama haddii kale wax qalad aad soo sheegtid macnaheeda ma ahan sidii la rabay inay wax noqdeen macnaheeda waxa waaye waa ka gaabisay isku day marka in mar walbo aad u sameedid qaabka aan kuugu sheegay waxaan waa faa'iidooyin badana kuugu jiro waxtar badanaana kuugu jiro xulbadan ha yareysan noocee doonta ha aato inkastay aada u fiican tahay xulbada oo dhankaas iyo Itoobiya ka timaado maasha allah waaye dhagaxaan badanaana ku jiro oo midmadow oo ayada u eg kasoo intaa qaadatid weel fidsan oo kale saxan ku shubo kasoo markaa ka socdid oo aad dhagaxaantii waxa dhan ay ka bixisid waa dhaqane waxaad dhiganaysaa meesha oo qoraxdoo kale aad dhiganay ama meel dabeel leh kabacdi markay kuu qalasho waxaa ku shubanaysaa weel dhala ah oo xiran ama caag ku xiran ayaad ku shubanay kadib subax kasto 2 qaado oo qaadada cuntada lagu cuna ah ayaad ka isticmaaleedaa sida shaahi camal ayaad u karinay markay ku soo xumbeysana cunugaaga cuntada intaada afka u saarin ayaad siinaysaa natiijadana waa 7 maalmood ma fahamta 7 maalmood gudaheeda wax waa ku dareemi kartaa fiican waxyaabo badan way ka hor imaan karaan laakiin waqtigaas isku day inaad gaartid si natiijo fiican aad u heshid mar walbana aad u aragtid waxtarkeeda xulbada sideedana waa la iska daacintaa oo mar walbo ilmaha waa la iska siistaa waxyaabo badan loogu sameeyaa ma aha ayada wax dhibaato keenayso ma ahan wax dhib hor la kuu siyaadineedo laakiin bal mar walba aad u sameeyid cunugaaga ilmaha kale tuu ka doonaanaya koriimadiisa lafihiisa dhammaan jirkiisa oo dhan soo isugu dheelatiran yahay xulbad waa geed mucjiso ah waa geed lafaha bini'aadamka aad u maleysid in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu yiraahday ayada ayaa loo sameeyay wuuna noo sameeyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax walba oo xalka bini'aadamka ku jiro wuu noo keenay oo daawo ama hadii kale anfacaad leh marka aan ka faa'iideysano isku day insha Allah video ina ka faa'iideysataan gabdho muuqaalkan intaan ayaan ku soo gabagabeynayaa hadii halkan ay la soo gaartay ilaa garay muuqaalka sheertan muhiim waaye hooyo kasta aad garanaysid caruur haysato u sheer garay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh